guddiga nabadgelyada gobolka Togdheer oo saacadii laga soo gudbay shir jiraa'id ku qabtay xarunta maamulka gobolka Togdheer ayaa waxay ka hadleen hadallo muddooyinkii u dambeeyay bulshada gobolka Togdheer si weyn u hadaleysay isla markaasina ku salaysnaa colaadda deegaanka Ceelaf Weyn taasi oo ay ka hadlayeen madax dhaqameedkii sidoo kale odayaasha kala duwan ee ka soo kala jeeda beelahaasi ku dagaalamaya deegaanadaasi taliyaha qaybta bilayska ee gobolka Togdheer sidoo kale taliyaha asluubta iyo barasaabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi oo warbaahinta la hadlay ayaa shacabka gobolka Togdheer iyo sidoo kale cid kasto horinaysa colaadda deegaankaasi baaq u diray waxaana ay bulshada gobolka Togdheer ay ugu baaqeen in la ilaaliyo ammaanka iyo sidoo kale xasilloonida guud ee gobolka Togdheer iyagoo arrimahaasi ka hadlayna waxa kamid ah hadaladooda waxaanu soo jeedinaynaa ama aanu digniin u diraynaa cid kastoo isku dayda inay khalkhal geliso nabadgelyada ama ay dhaawacdo qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland booliisku wuxuu ballan qaadayaa inuu tallaabo sharci ah ka qaadi doono baabuur baa hadii laga hadlayay walaha booliiska sii daayay gaariga waa la soo qabtay waa baabuur nooha ah baadanku inay wax aan jirin sheegaan ma aha baabuurka waxa saaray watay qolooyin baa watay ninkiina qori buu watay markaa qorigii iyo baabuurkiiba way xidhan yihiin sharcigu wuxuu ka qabanay noqon doontaa maxkamadana u gudbinay isagana jeelku ku jira wax kale oo meeshan laga doonayo iyo baabuur la sii daayo booliisku sii daayay iyo waxaan laga hadlayo ma jirto cid kasta oo ka yooyootanta muxuu ahaa miidiyaha ama hadal xun ka sheegta ama hadal nabadgelyada kicin ku ah isu maraysa waxaanu ka qaadi doonaa tallaabo sharci ah sidii taliyaha hore booliiska u sheegay cidna u dulqaadan mayno ninna uma suuragelayso intuu iska hadlo oo wuxuu doono ku hadlo inuu haddana hadhowto iska joogo waddanka suurageli mayso waayo balaayo daba la qabto ma lahayd daama la qabtaa bay leedahay baa layidhi cid kasta oo miidiya la soo fadhiisata arrin shaqaaqada Ceelaf Weyn u muuqan karta inay tahay kicin ama maaragtay u muuqan karta inay kabriidka ku sii qabanayso guddiga nabadgelyada ee gobolka Togdheer waxay ogeysiinaysaa dadka reer Togdheer ciddii arrinta ku kacda ee miidiya la soo fadhiisata in laga qaadi doono tallaabo sharciga waafaqsan waa digniin weeyaan nabadgelyada xukuumadda ka mas'uula cidna loo daba fadhiisan maayo wadana cid ma xiri karayso mid baan wadada u dhaxaysa Burcay iyo muxuu ahaa Ceelgaabo xiri karin mid baan wadada Burcay Hargeysa joogta xiri karin kii waxay lagu iska hadlay ciddii dambe ee la soo fadhiistay miidiya hadalan noocaas oo waxa weeyaan xaaladda sii murginaya waxaan ballan Ilaahay ku qaadan inaan ka qaadno tallaabo sharciga waafaqsan shirkan jiraa'id ee gobolka Togdheer ay ku qabteen guddiga nabadgelyada ee gobolka Togdheer ayaa ku soo beegmaysa xilli muddooyinkii u dambeeyay warbaahinta si weyn uga hadlayeen odayaasha madax dhaqameedyada sidoo kale waxgaradka ka soo kala jeeda beelaha ku dagaalamaya deegaanadaasi Cabdiraxmaan Amaar Cabdilaahi Xasan telefishinka caalamiga ee Somali News magaalada Burco